الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn waxaynala gudboon oo inoo habboon inaynu aada ugu mahadnaqno allah subxaana wa tacaala ina waafajiyey inaynu nimahadno dhulkan qiimaha badan iyo waktigan qiimaha badan. hada tawfiiq min allahi subxaana wa tacaala. dad fara badan oo waxaa jira xoolaha aada haystaan xoolo ka badan haysta, xoog iyo caafimaad qaba, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda aanu xaggan usoo jeedin. inuu ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga xaggan usoo jeediyey ila albalad alxaraam wa ila almasjid alxaraam waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey oo ay tahay si gaara inaad u dareento. nicmadana ilaahay subxaana wa tacaala waa lagu ammaanaa bidikri asmaa'ihi wa sifaatih. ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisa ayaa lagu ammaanaa, waana looga mahadnaqaa ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday nicamka diiniga iyo kuwa dunyawiga allah ina siiyey subxaana wa tacaala haddaynu uga mahadnaqno inuu ilaahay noo ziyaadinayo oo inoo kordhinayo. lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. qodobka labaad, bisha ramadaan in qofku isagoo muslima oo nool ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada kusoo gaadhsiiyo, iyada lafteeduna waa nicmo weyn, waayo waa fursad qaaliya weeye. waa fursad khayr, waa fursad isbedel, waa fursad qofku uu ku siyaadin karo oo kor ugu qaadi karo iimaankiisa, alla kacabsigiisa iyo diinku dhaqankiisa, istiqaamadiisa, khushuucdiisa iyo xidhnaanta qalbigiisu, tacaluqu qalbihi billahi subxana wa tacaala, xidhnaanta qalbigiisu ilaahay subxana wa tacaala uu ku xidhan yahi. iyada lafteedana waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina soo gaadhsiiyey aynu ku ammaano oo aynu uga mahadnaqno. taasi waxay noo suurto gelinaysaa laba arrimood. arrinka koobaad oo ah in aynu garanno qiimaha waktigan uu leeyahy, qiimata hada الzamaan, iyo inaynu fursaddan qaaliga ilaahay subxana wa tacaala ina siiyey waktigan qaaliga iyo meeshan qaaliga ah inaynu ka faa'iideysano. waxay habboontahay inaynu kaga faa'iideysano, inaynu kaga faa'iideysano oo aynaan iska dayicin. arrinka saddexaad aynina xusuusinayaa wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala camalka wuxuu aqbalaa uunka daraaddii loo sameeyo. maa cumila lilahi subxaana wa tacaala wa fucila liajlih. camal walbana miisaankiisu waa niyada. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi inama alacmaalu bالniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa. qofka cumraysanaya, ka soomaya, ka tukanaya, ka xoolihiisa wax ka mida bixinaya, xukumka camalkaas uu yeelanayaa wuxuu ku xidhan yahay wuxuu qofku u niyeystay. man nawaa bicamalihi lilahi subxaana wa tacaala wajada ajrahu cinda allah. qofka camalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku weyneeyo, ugu dhowaado, u niyeystaa, ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ajarka iyo abaalmarinta uu ka helaya. qofka cid kale u niyeystaa in lagu ammaano ama magac iyo sharaf iyo maamuus inuu ku helo ama maalba, ciddaa wixii uu ka helay ayuunbuu leeyahy. ilaahayna subxaana wa tacaala xadiid اlqudsiga wuxuu ku yihi ana agna shurakaa'i can الshirk man camila camala ashraka fiihi maci gayri taraktuhu wa shirka.
anigu qani baan ka ahay waan ka kaaftoomahay umana baahni cid inaan shuraako la noqdo sidaba shuraakowga maxaa keena yadkhul annaasu fi sharika baahi la isu qaba ayaa keenta hadduu qof waliba isku filan yahay oo cidna aan u baahnayn cidina may shuraakowdeen marka ilaahay subxaana watacaala waa ganiyun can kuli shariik waa ilaahay subxaana watacaala waa gani waa alganiy alxamiid waana alqawiy alqaadir waa mid xoog iyo awood leh ilaahay subxana watacaala ilahay wuxu uhi qofka sameeye camal aniga iyo cid kale uu nagu shuraakaysiiyey uu naga dhexaysiiyey taraktu wa shirka isaga iyo camalkaa shirkigee uu sameeyeyba ilahay waan iskaga tagaa bui macnaa agteeda qiimo kama leh ilaahayna subxana watacaala waxba kaga heli maayo ikhlaaskuna oo camalka in ilaahay daraaddii loo sameeyaa waa casiisun fi nufuus waa mid nafaha aada ugu yar kuna culus dabciga bani aadamka ku beeran baa wuxuu yahay waxa ay ka helayaan ama ay ku helayaan u muuqdo ay arkeen inay ku dadaalaan ikhlaaska waxaa lagu helayaana wax markaa nafta u muuqdo maaha yaa qof naftiisa la dadaalay oo la jihaaday ayuun baa noqon kara mukhlis fi jamiici axwaalihi wa awqaatihi wa acmaalihi axwaashiisa iyo waqtiyadiisa iyo acmaashiisa oo dhan walikhlaasu yaxtaaj ilaa istixdaar ikhlaasku waa cibaado bal waa acdamu cibaado waa cibaado ugu weyne ilahay lagu caabudo marka wuxuu u baahan yahay in qalbiga lagu soo xaadiriyo hadaad ikhlaaska qalbiga kusoo xaadiriso hataa cibaadadu way kuu dhadhamaysa tatadawaq alcumra wاlطawaaf wاdducaa wالsalaa waad dhadhaminaysaa waad macaansanaysaa mar kasta haddii qalbigaaga ay kusoo xaadirto anaka tacmal hada alcamala lilahi subxana watacaala camalkaa inaad ilaahay daraaddii aada u samaynayso ad qalbiga mar walba aad kusoo xaadiriso lidalika faa'iidatan faa'ida koobaad oo ah anaka tadkur اllah subxaana watacaala biqalbik ilaahay baad qalbigaaga ka xusuusatay faa'iida labaadna waxa weeye camalkaa marka aad bilaabayso aada qalbigaaga kusoo xaadirisay anaka tacmaluhu lilah iimaan buu kuu ziyaadinayay khushuuc waana dhadhaminaysaa la mid maaha camal dakalta fiihi wa anta fii gafla waxaa laga yaabaa qofku camalkaa markuu sameynayo inaanu ligayr illahi u sameynayn cid kaloon ilahi ayn u samayn maayo cid kale waxba kaga dooni maayo laakiin lam yuxdir ilikhlaasa fii qalbi ikhlaaski inaanu qalbigiisa kusoo xaadirin markaa nooc gaflada isagoo ku jiro camalkii bilaabaya salaaddii buu gelayaa dabeetana salaaddii khushuuci yeelan mayso mana dhadhamayso saasoo kale cumradii soomkii wuxuu noqonayaa ka nooci min anwaaci alcaadaat oo kale sidii qof arrimaha caadooyinka ka mid ee loo bartay sameynaya ayuu noqonaya arrinka afraad aan intaa ku daraya wuxuu yahay bisha ramadaan dhexdeeda ilaahay subxana watacaala wuxuu geliyey cibaadaat kahiira waa waqti cibaado awalu leyla min ramadaan ayuu ilaahay subxaana watacaala amraa malag dhawaaqo oo yidhaahda yaa baagiya alkhayri aqbil macnaa hada zamaanu qofkii khayr doonayo soo qaabil u kaale macnuu waxa weeye waqtigan oo waqti munaasiba oo muhaya-a lificli اlkhayr diyaar u ah samaynta khayrka iyo usaahi qaadashada aakhiro iyo la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala jawigoo dhan baa qofka ku caawinaya cibaadaadka iyo isbedelka ilaahay subxana wa tacaala caalamkan uu ku sameeyo qeybtiisa sariya qeybta hoosaba baabada jannada ayaa la furaa suu inoo sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam baabada naartana waa la xidhaa shayaadiintana waa la xidhaa gaaraan kuwooda madaxa adag dadka muslimiinta badankooda ayaa khayrka iyo wanaagga usoo jeeda kulu hada yuciinu lcabda calaa ficli اlkhayr watasawud lilaakhira arrimahaasoo dhame addoonka waxay ku caawinayaan sameynta khayrka
iyo u sahay qaadashada aakhiro. arrinta muhimka haddaba waxay tahay qof wal oo muslimiba inuu isweydiiyo maa atharu hadihi alcibaadaat fi nafsik wa qalbik wa طabcika wa khuluqik. cibaadaadka ramadaan dhexeeda la sameynayaa maxay raad kugu yeeshay? cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala ujeedooyinka u sharciyey waxaa ka mid a an tatruka ahara طayiba fi xayaati اlmutacabid lilah, inay raad fiican kaga tagto nolosha qofkan ilaahay caabudaya, noloshiisa o dhan raad inay ku yeelato cibaadadu, qalbigiisa inay raad ku yeelato, carabkiisa inay raad ku yeelato, camalka xubnuhu ay sameyn inay raad ku yeelato, xataa dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa siduu ula dhaqmayo khaaliqa abuuray iyo makhluuqaadka noocyada kala duwan, naftiisa, waalidka, awlaaddiisa, xaaskiisa, qaraabadiisa, jaarkiisa, dadka noocyada kala duwan, muslim iyo gaal siduu la dhaqmayo inay raad ay ku yeelato. marka su-aasha ay tahay qofka muslimkee bishan ilaahay uu soo gaadhsiiyey cibaadeysanaya inuu isweydiiyo waxa weeye, cibaadaadkan aada sameyneysaa bal isqiimee. hadda ramadaan kala barhkeedii baynu dhaafnay, caawa waa 20, yani thuluthaan baa tegey, 3 qaybood marka loo qaybiyo 2, walaa zaalat hunaaka fursa. laakiin weli haddada fursaddu way taagantay, intii u qiimaha badnayd baa harhsan, oo haddaad isxisaabiso od isqiimeyso ay kuu soo baxdo inay wax kaa khaldan yihiin ama kaa dhiman yihiin, mumkin an tatadaarak nafsak, suurtagal ay ku tahay waxaa ku dhaafay inaad ka daba tagto. iimaankaagu qabla ramadaan halku taagnaa ma dhaafay oo ma ka ziyaaday, ma hoos buu uga dhacay, ma halkiisii buu taagan yahay? su-aal. ka waran riqatu qalbik, qalbi jileecaaga, qalbigaagu ma jilcay oo ma dabcay oo qur-aanka iyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo ducadu ma raadeyneysaa? hal tabkii min khashyat illaahi subxaana wa tacaala, dhacaysaa inay indhahaagu inay ilmeeyaan inta qur-aankan la akrinayo iyo dikrigan iyo salaadan iyo cibaadaadkan ay ku raadeeyaan? khushuucuka fi salaati ka waran, xuduuru qalbika fi salaa, xisbedeli ma ku yimi qalbigaagu inuu xaadir noqdo markanaad tukanayso? waayo isku mid ma aha cibaadada qofku uu ku sameeyo biqalbin xaadir muqbil cala allah iyo cibaadada qofku uu sameynayo oo xubnihiisu ay ku dhaqaaqayaan maca gaflat اlqalb, isku mid maaha. nabigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay annahu yuktabu lilcabdi min salaatih maa caqila minha. salaaddii aad tukatay faralku ha kaaga dhaco haddaad shuruuddeedii iyo arkaanteedii aada dhamaystirtay, laakiin inteebaa lagaaga qorayaa ajar aad ka helaysa? maa caqilta minha, inta qalbigaagu xaadirka ahaa. qof baa looga qorayaa salaaddii nus, mid baa looga qorayaa thuluth, rubuc, khumus, cushruhaa, mid baan waxba looga qorahayn salaaddii, wax ajaraba faralki un baa kaga dhacay, wax ajaraba looga qori maayo. sababtu waa maxay? shuruuddii iyo arkaantii salaada ee fiqiga iyo axkaamta lagu sheegi jiray wax ka maqayin maya. maa caqila minha shay-an, wax salaadaa ka mid oo qalbigiisa uu xaadir ahaa oo uu khushuucsanaayo, waxaanuu akrinayo iyo waxaanuu sameynayo uu dareensanaa u dhadhaminaya maba jirinba. soomka laftiisa waa la mid. nabigu calayh الsalatu salaam soomkiiyo salaadaba isagoo ka warramaya wuxuu sheegay dad maalinka o dhan soomanaa, habeenkii salaatuleil tukanayay, haddana wax ajaro haba yaraatay ay ka heleen aanu jirin. ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc wاlcatash, waruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahr. fara badanaa mid sooman oo soomkii gaajiya haraad mooyaane wax ajaro uu ka helay ma jirto. faralkii inuu kaga dhacay baa laga yaabaa soomkaas,
وقال لها لقول لهاي لكن لم يكتب له منه شيء حبل له قرن ويصام بغفلة لا بحضور قلب سقوا غفلة ديسان وقلبي جيسو أنا حاضر هاي أنا الصوم كنا هاي بالصوم لهذا علماء واحد هذان صوم كوا صدح نوع صيام البطن وكضد فربضان صوم كود وياه ومعنوه إنه كصومون وحعون تشرو عب تشري صوم كورتي حلاشها وصيام البطن ما هو الصوم كعلاش نوع على بعض صيام الجوارح وعلاش هو صوم سيء وصام عن الطعام والشراب عني وحعبه وكصومي وكذلك حبنه سنة عندها دقها قعمها لقها وكقبته وكتشوتشي وكسومسيي وحي لقى حارنتمي في رمضان وفي غيرها حارنتها رمضان يا رمضان لا حارنتها نوع صدحات وهو أفضل الصيام وأرفعه وأعلاه وصيام القلب وقفك من قلبك كصوم وفي قلبك كصوم علوشنا وكصوم حبنان وكصوم زيادة ولا صعطة الصوم كيساس يتذوق صومه ويستحضر صومه بقلبه في قلبه الصوم كنا ضمينيا العبادة كتير درنسين هاي صوم كيسو قلبي كيسو حاضر كي هاي يخشع في ثيابه أنا أغفق الصلاة دو خشوع عوين مقالة لكن صوم كلفتي جميع العبادات خشوع به وباهي تحتاج إلى خشوع marka qofka muslimka ah waqtigan qiimaha badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo gaarsiiyay waa inuu qiimeyn iyo xisaabin joogto ah naftiisa wala daba socdo imika hadda fursad baynu haysanaa walillahi alhamd 10 ليالي وافضل ليالي الدهر سند كهبيني سوق قيمها بدنا ayaa inagu soo socda day waxbay naga bedeli waayaan day Ramadaan isbedeli weyno goor ay isbedelina lama garanay Allahu a'lam Ramadaan arinka shanaad waa fursa للتغيير wax kasta oo xun naftaada kaga bedeli karta Ramadaan وكل ما يعينك على التغير باهر تاديال wax kasto kugu caawiyo inaad isbedel samayso wax kasta oo wanaagsan oo ku sifaysnaydna waad ziyaadin kartaa waad kordhin kartaa adoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saaranaya rabbina kaalmaysanaya weydiisanaya an yuciinaka ala alkhayr Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka uu kugu kaalmayo iimaankaaga isbedel ku samayn kartaa waad ziyaadin kartaa istiqaamadaada iyo diin ku dhaqankaaga ku toosnaanta diinta waxaad ziyaadin kartaa khushuucdaada camalkaaga ziyaadin kartaa salaadaada soomkaaga intii Ramadaan ka hor waa Ramadaan kadib inuu ka ziyaado ayaa waqtigan qiimaha badan iyo qofka meeshan qiimaha badan yimi arintaasi aad iyo aad ay ugu caawinaysa isbedelka Ilaahay caalamka uu ku sameeyaa markay Ramadaan soo gasho caalamka sare samooyinka iyo caalamkan hoosaba yadcuuna ilaa تغيير إن نقول إن فين يسبدل كل سمينا أيوة نوجو باقية بالوديه يقف كل نفتيس بالودو يعني بالودو حلا قف وح حنا وكو امتحامي وفرصة قف كل نفتيس أو كجت شركة ويا مالين كودم بكسوبي يا صما أنت واحد ده وينو نفطة لتشي هذا ولد ده هبين كينو يسكدايو قانا وقاطو إلهي تلا صارت سبحانه وتعالى أنا نديب وقول نقون وقوان صو إلهي دراد وقت توبت كان بل ودوي بدين بل وداد شردت كانوا حوي قانان حيابها دروغدا إيو قاد السيجاري الدروغوين ككليو حيابهاس بل ودي كميدين لكن بل ودوي بدين دتك غار كود بيني بل ودوت بينتها بل ودو رمضان نفتوت كجت شركة رمضان صو اسكميل على سيد بنت قف كستوب بين علىها رمضان حلقين وبنت سكيل عليه يتحفظ في رمضان ويسدوري ويسلالني فرصad baad ka dhigan kartaa dabciga ay dhaqanka noocaas nafta aad ka jari karto dadka qaar ba dadka inay xantaan ay dabci u inay isku diraan isku hor keenaan qaar ba waxa dabeecadu asaas oo kale in ay waxadaan in wax khiyaameeyaan
inay meel xaaraana ka shaqaystaan inay xaaraan cunaan dabci iyo dhaqan kastoo xunna qofka muslimka ay naftiisa uu ka bedeli karaa haddaanad isbedelba samayn karahayn laguguma kalifay inaad isbedel samayso laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusaha kani nebigu calayhi salaatu wasalaam inama alcilmu bitacalum macnaheed waxa wey jahliga waad ka guuri kartaa waxaad iskaga bedeli kartaa inaad cilmigii barato walxilmu bitaxallum xilmiga dulqaadka xilmiga waxa la dhaha qofku aargoosiga iyo khaladka laga galo ka jawaabistiisa inaanu ku degdegin wuxuu ku yimaadaa inaad naftaada barto kadalika asabru bitasabur sabir haddaanad naftaadu marka hore aana ku sifaysnayn naftaada waad bari kartaa yaa ayuha aladiina aamanuu اصbiruu wasaabiruu waraabiطuu wاtaquu llaha lacalakum tuflixuun yanaa musaabaradu mujaahadatu nafsi cala sabr waana naftii sabirka aad kula dadaasho man yastacfif yucifahu llah waman yastagni yugnihi illah yanaa qofkani marka hore umuu dhalan dhowrsoona inuu carabkiisa dhowro calooshiisa dhowro xubnihiisa kale xumaanta ka ilaaliyo laakiin naftiisu kula dadaalay ilaahay subxana wa tacaala markuu dadaalkaa ka arkay wuxuu ku caawinayaa oo ku kaalmeynaya u fududeynaya inuu dhaqankaa fiican yeesho kii xumaana uu ka guuro qof baa waxba aanay deeqin wax kastoo uu haystaa uma muuqdaan waa baahane si joogtaa u baahano wey naftiisa waxa hini nafsi baa ka maqan darinimadii nafta wuxuu ku dadaalay inuu sifadaa xun iska bedelo ilahay baa subxana wa tacaala ku kaalmeynaya walow calima allahu fiihim khayra la asmacahu hadduu ilaahay subxana wa tacaala khayr iyo wanaag kugu ogaado iyo waxa weeyaan iraada jaazima doonis go-aan khayrkii wanaagga aad dooneyso allahu subxana wa tacaala yuciinuka calaa dalik ilahay arrinkaasi kugu caawinaya qodobka u dambeeya aan ku gebagabeynaya wuxuu yahay baaraka allahu fiikum caawa bishii ramadaan waa 20 habeenka 21aad waxaa bilaabmaya 10kii dambe ee ramadaan 10ka dambe ee ramadaan bay ka mid yihiin oo fadliga ramadaan bay leeyihin fadli dheeraadana way leeyihin fadliga dheeraadka waxyaabaha u yeelay waxaa ka mid ah in leylat lqadri ay ku jirto habeenka barakaysan ilahay uhi inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka waa habeen barakaysan ilaahay baraka u geliyey baraka diineed buu ilaahay geliyey waa leyla cadiima waa habeen aada u weyn inaa anzalnaahu fii leylati اlqadr waa habeenkaa ilaahay subxana wa tacala uhi leylat اlqadri khayru min 1000 shahr khayrka leylat lqadrigu waa camalka saalixa ee la sameeyo ayaa ka fadli badan camalka saalixa ah ee waqtiyada kale la sameeyo khayrkiisu waa kaas iyo fadligiisu 1000 bilood camalka wanaagsan ee la sameeyo waxaa ka fadli badan camalka la jinsiga ama la nooca ah ee habeenka leylatulqadriga la sameeyo 10ka dambe ramadaan markay soo galaan nabigeeni maxamed calayhi الsalaatu wasalaam 3 sifo uu lahaan jiray bay noo sheegtay caaisha radia allahu canha waxaa kaloo saxaabadu in badan ay ku celceliyeen tala qiimo badan oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu bixiyey oo uu siiyey qofka muslimka ah muqbil calaa alcashir alawaakhira kusii socda 10kii dambe ee ramadaan 3 sifo caaisha radia allahu canha waxay tihi kaana الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ida dakala alcashr axya leyl 10ka ramadaan ee dambe markay soo galaan nebigu habeenkii uu nooleyn jiray yaana dadka qaarkood habeenkoodu wuu noolyey qaarna habeenkoodu waa meyit habeenkaanad ilaahay caabudin waa habeen meyda wey oo bakti ah macana nafciya waxtar meydku miyuu cid wax taraa cidna waxama taro qof dhintay saasoo kale habeenkaanad ilaahay caabudini waxtar kuuma leh hurdaad ku dhamaysatay laa fii camali dunya walaa fii camali alaakhira adduunyana kagamaad faa'iideysan aakhirana ugamaad sahay qaadan waa kalmeyit habeenkaas marka qofku habeenkiisa wuxuu ka dhigi karaa mid meyda waxaa kaloo ka dhigi karaa mid nool wuxuu habeenkiisa ku nooleynaya waa cibaadada wey habeenka nooli ee waxtarka kuu lihi ee yowma alqiyaama aada ku farxi doontaa
تفرح به إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهبينك عبادة كنا وليس معنى يدو حويا النبي عليه الصلاة والسلام وقتيذا كلين رمضان أنا هين كان ينام من الليل ويصلي فيه هبينك وردن صلاة الليل ما تكنشرين وقت كم إذا نوات تكنشر وقت كم إذا نوات سيحنشر كان العشر أواخر مركز سوق قالان هبينك النبي عليه الصلاة والسلام عبادة أي السقوط بحنشرين صفة اللباد عبادة سوى الصلاة دي وفرل كيساق مر والبوال للتكني هبيننا أنا إلا سيوانا تشيو فرل كمودي هذا لو قد هورا لو قد سي ديار قرو صفك هورا لو سي قال هورا مساعد كالله تقو سنياشي كهر ريال قد دارو والله لسي ذكريو لسي دعايستو سو قلبي قد ديار قرو waxa dheeraadka lagu nooleynayaan waa salaatu leey waxyaabaha dambi dhaafka lagu helo nabigu kaleey salaatu salaam fi ramadaan wuxuu ku daray in habeenka leelatul qadriga qofku uu tukado salaatu leey يعني هذا أقل شيء ليلة القدر يدان صلاة الليل تكن ما هي لي مغفرة ذات قاركة ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله أرين طلبات النبي عليه الصلاة والسلام ريركي سيدتك قولي سكون صلاة أيوتو سنجري سيقولنا خير كوغيب قاطان إذا لفت يدوى من الأمر بالمعروف تقولي هاي كتمي ددبا كلت شوي قارب أقول كلت دقن احتسب فيهم يجي لفتو دينا صلاة أوكي صوت كبرار صوت كل يرجلسوا إلهي سبحانه وتعالى أشر كقدر وشد المئزر صفة صدحات النبي عليه الصلاة والسلام قلت واد كيسن شري لا معنا والله فسري أنا تشمير للعبادة والجد والاجتهاد فيها بعبادة قد ذلك شري وقفك واحد نوقنا مركو الشقاء أدق بنيه قلت واد كيسن قيل شري ودين كاركالك قلت جيجي الكاتشيل بكوستي سجية قيل إنك الراعة قيل إنك إلالية أنا نينكو هادو ساسو كلا ورابين يجيلي بيسينيا كنت واد كيسانيا هذيك كلا دانو واد كيسان شقا هذاك بقبانيا وكدعيا صون أنا هقول بودي يرجعوا بتشروي كان يستعد للعبادة يتجهز لها إنه الدمر كفوا كان شري هبين كي إنك حاسكي سواء حلال كهبين كان للصوماني لكن طبعا كان ده مركز سواء قلان إنه قلبي حق عبادة هو ذا تشيدين شري dumarka iyo hawlaha adduunyo dhan uu ka soo jeesan jiray cibaadadka waxa kamid ah i'tikaafka 10ka dambe nabigu ku caamili jiray oo ramadaan 10keeda hore iyo 10ka dhexe iyo 10ka dambe nabigu uu i'tikaaf macna sanado kala duwan sanad 10ka hore sanad 10ka dhexe sanadna 10ka dambe laakiin i'tikaafkiisu markii uu dambeysay wuxuu ku istiqraaro ku sugmay طبعا كالضمبي وفعل ذلك طلبا لليلة القدر وحانو ساو سمي الرادين والرادين ليلة القدر اعتكاف كان أحكامتي سوي بلارن تاعي نيو باهي هاي وعباده إن النيسته مركز مساجد كقشاية نيسة نسا وقت قوي الاعتكاف في كروك اللي علماء دو يسكو خلافان العلم قاركود waxay leeyihiin habeen baa u yar kaasina maanta inaga way noo suurta gal habeenkii waxa weeyaan maghribku masaajidka uu kugu soo galo ilaa salaada subaxaad joogto خلاص habeen baad i'tikaafta العلم قاركودna waxay leeyihiin waa qadru tumaaniina qadarka xasilida rukuucdii sujuud oo kala haduu masaajidka joogayo i'tikaaf niyeysa i'tikaaf bay noqonaysaa asmadabka shaafiiciyaha المهم وقت فربنا بيننا وهيصنع عبادة ونمي هالكن شغال كلا ينكاينا ما جبته أقل شيء اعتكف بالليل بينك اعتكاف أنا هيسكت شوق يقول مساعد كل بدأت شوق يسن نية اعتكاف كلا كاله بينك وحويانا هذا اعتكافته نيسو اعتكاف كانوا اعتكاف السنة اعتكاف كوح فرل النقضاء وندي اللي قلنا ندرو هذيك لو السنة كقفك أنت وتشوقنا معتكف
markuu baxana muctakif maaha hadduu markuu ku noqdo masaajidka uu doonayo ictikaafana niyo kale u baahan yahay oo yanqatic bilkhuruuj ictikaafkii hore dee wuxuu ku dhammaanayaa bixistaa u baxay mana ka jabayo lama odhanayo kii hore uu kaa buray mar haddaad baxday oo ictikaafku ku nadaray maa waa ictikaaf sunna wakti intuu doono ayuu ka dhigan karaa ka muslimka ah saynu sheegin ictikaaf macnihiisu waa maxay xabsu nafsi fi lmasjid للتفرغ للعبادة والنفط إن مساجد كلو حرة لو حبسه سببت الله حرة يا محي مساجد كمان إلا سيحدا ولا سيحان كرا وقف وقت جو هردو بعض ما إلا سيحدا ووقت جوردن هردو كوبح ما إلا الشيكية بقى لا وإن عبادة الله تفرغ صلاة الليل كسر صحيحة ما الله ترجعان وقت اللي تكنا يا وكوبي laba salaadood baa la tukadaa taraawiixda oo bilaa witriya ee tobanka dambe soo galaan iyo salaad waqtiga dambe la tukado tahajjud qofkii hurdowga ka soo kacay bay tahajjud u noqonaysaa witriga xagga dambe la raaciyaa ma aha macnaheedu salaadu inay intaas soo qurato iska tukan karta masaajidka waxaad ku arkaysaa dad sida qoriga oo kale saa u taagan habeenkii oo dhan marka taraawiixda laga baxo ilaa tahajjudka laga gaadho tahajjudka horaa looga baxa waqti badan iyadoo ka harsanayay fajrigii baa laga baxaa sooma dadka qaar sheeka iyo hadal iyo cunto waqti badan lagu bixiyo ayay ku qaataan ka waxaad arkaysaa dad sidaa subxaan allah yani yadhar calayhim atacabud yani cibaadaysi oo aada uga muuqdo waad tukan kartaa nebigu calayhi salatu salam wuxu uhi salaatu leyli mathna mathna laba ragcadood salaamo naqso laba ragcadood salaamo naqso intan imaamku ku tukinayo qura kuma eka wad ka badsan karta quraan akhriskii baa kamid ah cibaadada loo tafaruqayo ducada biqalbi muqbil cala allah ilaahay aad ku baryayso qalbi xagga ilaahay u jeeda dikriga maca tadawuq adoo dikriga macnihiisa dikri kastood akhriyayso isku day inaad macnihiisa fahamto afdalu dikr ama afdalu kalaam soo afar kelmadood maaha subxaana allah الحمد لله لا إله إلا الله يا الله أكبر وأفضل الكلام بعد القرآن سورة النبي عليه الصلاة والسلام أفرتاس معناه دين تفهمتي اسكت سبحان الله معناه ضام مركز لا هنا ضمي وقلبي كدرين سبحان الله معناه الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص إلهي عيب إيه النقصان إيه وح ودن وكمبري وإن معناها قلبي جاء وقلا مركز ذكر يا كوخ شوعيسة إيمانات كزيادة سنس الحمد لله معناه ضام حي إلهي بقى سبحانه وتعالى وناق أردن كسفيسا الله متصف بجميع الكمالات وحسفوا وناق سنة وإلهي كما قنمتره إن الله جميل يحب الجمال كملت له جميع صفات الكمال لا إله إلا الله وكلمة التوحيد معناه إلا برتوا واجب لا معبود بحق إلا الله مد عد حق لقوا عابدا ما شرت إلهي مجاني إلهي يقول حق ولا إلا عابدا عد كستون الله سبحانه وتعالى هين ولا عابدي بعض البالغ عابدي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ويرد معناه لا إله إلا الله مركز كوع العلين اسم معناها سي قلبي وين كسو حاضر الله أكبر ما معناها وكلمته سنيسا إلهي عظمديس وينديس إلهينا سبحانه وتعالى وعظيم وهو العلي العظيم وعظمته نوعان عظمة ذاتية وعظمة بأسماء وصفاته إلهي ذات بوي waxaa kaloo ilaahay uu ku weeyay magacyadiisa iyo sifaadkiisa magac kasto oo wanaagsan buu ilaahay leeyahay oo isku magacaabay oo kitaabka quraanka lagu sheegay ama nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ah ku sheegay sifaadka dhameyska tiran oo dhan buu ilaahay leeyahay waa cadiim ilaahay bidaatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi allahu akbar marka tiraado macnaheedu waa maxay ilaahay baa cid walba ka weyn عظمة إلهي وين قلبي كسر حاضرته يا أخوان مركز ذكر إلهي قيمة هي معنية فائدة إنه يلانية
وإلا هديك العرب كونه يكن رهانه يكتب لك أجر إن شاء الله. ذكر اللسان أجر ولا يقري، لكن لم ينقل معي ذكري قلبي يعرب كويس وافقه. أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. ذكري هو فضل بدو كقلبي يعرب لبدا سي اسكو وافقين. نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ثلاثة وبحي waxay tahay ليلة القدر inaynu raadinaynu baadi doono ayuu inagula taliyay oo taxaru ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر يكون ذلك كالرادية طبعا كالضنبة بوري النبي عليه الصلاة والسلام. أنا طبعا كالضنبة عباديسته والله كل من دونتان بإذن الله تعالى ليلة القدر. صحابة قال كذا حورين شيرين من يقوم الدهر يلقى ليلة القدر. وفي السنة كردن صلاة الليل وكعاء. ليلة القدر إنه الله كل ماي والله هو. طبعا كالضنبة وطبعا كاللوجور الشبدين. تضبط الضنبة. ليالي الوتر أبين هذا تردو ده ديمانتي. لكن كواس وقرا يسقوها الليل. هبين تردي سبوح ده أيون غنكرا. النبي يقول يلتمس ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. ليلة القدر يكرر هدية بين رمضان والضمبية. الصوت الضمبية كلها ما انكرت صح. بدك كلام بدل واحد عادين اللي يسكو خلافه. إنك كسوع عالم الإسلام يسوي مو كالسومين. الله أعلم يا صحصن. إلهي بقى صوما حقيقة حكم كظاهر كا قول أبوه حبي كل لسان. لكن إنك هبين ضمبي كوبي الله تنواتي صوما. قارب الله باطن وطحي. كأدو ود الدلال هبينه ود الدلال. عبادة كود دلال. نوعية كالدول تصال ياشا أينو كبحنا. وقت جا قيمة بدل ما لاليال يونك الضيعنا. وقت جا غالي يونك الضيعنا. النبي عليه الصلاة والسلام حوري سيمام النساء وريي لله فيه ليلة خير من 1000 شهر. رمضان إلهي سبحانه وتعالى وحو كل يهبين كم بلاد عمل كلا السماية وكخير بدنية عمل كلا السماية. من حرم خيرها فقد حرم. هبين كان خير كيس قفك كقضى. معنا قف كان كفائدين هبين كان وح خير عن شقيسة. ومحروم. وقف خير كي وناجي كقضي وقضي. أنا قديس توات قرنسا وقف عنتدي reerku ay karsadeen isagoo waxba ka cunin reerkii cuntay karsadeen oo diyaar ahayd dadkii kala dhami way cuneen qado ama casho ama wax la mid ah isagu lam yaakul shay xamu cunin sala macna waqtiga dadkii kale way ka faa'iideysteen laakiin isagu waxba kama faa'iiday way macnaheedu waa khasaare dadkuna fi ramadaan wama bayna khasir wa rabih wa khasaaray iyo kuwa faa'iido macaashay labada nooc bay leeyihiin أدنى الربح نوامح وأن يخرج رمضان وينخلع وقد غفر ذنبك ربح هي معاش كرمضان انتي سأغير هدي هوس لو دافو خساريه اد كدعداي وين لو دنب داف qofka رمضان ay u soo gasho oo ay baxdo isagoon samayn wax Ilaahay ugu dambi dhaaf waa khaasirkaas النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فخرج ولم يغفر له ودوا له يقف كاس وقف خساري وقد دعا عليه جبريل وأمن له النبي عليه الصلاة والسلام جبريل له هباري من إلهي فوقيه أبوك هباري نبي محمد عليه الصلاة والسلام آمين بولي صدح شر كان إلهي نقام دقوا خساري إن وقت يعني إن قالوا ما وحان عبادة هين أو نسكيل عليه أسباب تدم بالداف كان إن كود دال كم الصوم كا صلاة الليل أبين رمضان ولا تكذا ليلة القدر يقول كود داله حين تكشديسة إلهي سبحانه وتعالى التوبة كأنه وكذلك الحسنات الماحية وناقيدا كما أنتم بإلهي حمانها الدوامها وكجبا بيا وكجدافا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا كل ذنب
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inshallah, we're going to open the floor for some questions. We've got some written first. We'll go through the written questions and then we'll go through the open questions. السؤال زكاة الفطر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الفطر فرض رسول الله زكاة الفطر سورة عبد الله بن عمر. waxay markaa faral ku tahay qof kasta oo muslima oo habeenkii maalinkii Ramadaan u dambeysay gabalkeedu dhacay, yani habeenkii ciid uu soo galay. qofku hadduu dhinto iyadoo habeenkii ciid aanu soo gelin weli Ramadaan ay tahay zakaatul fitr in laga bixiyo waajib ah. qofka markaa qoraxdu ay dhacaysay aan joogin inta kadib dhashay isna in laga bixiyo waajib ma aha, waayo waqtul wujuub waa in qofku Ramadaanna wax uu ka joogay ana saacadii u dambeeyay habeenkiina uu soo galay, habeenkii ciiduna uu soo galay, labada waa in la wada helo. marka zakaatul fitr qofka xorta iyo ka doonka ka weyn iyo ka yar, rag iyo dumar dhammaan waa laga wada rabaa. qofku naftiisa iyo cidda uu isagu masruufo nafaqadooda iyo masruufkooda waajib ku yahay inuu ka bixiyo. waana saac waa 4 amdaad, labadaasoo la isu geeyo dhexdhexaad 4 jeer marka la daro ayaa saac la dhahaa. 2 kiilo iyo badh 3 kiilo iska gaadhsiin, waa raashimada kala duwan xagga culayska iyo fudaydka. waxaa markaa la bixinayaa marka waktigeedu uu soo galo maalinka Ramadaan u dambeeya gabalkiisu dhaco, waana la qadimi karaa. saxaabadu labada maalmood Ramadaan u dambeysay way bixin jireen. Ramadaan oo dhan qofku waa bixin karaa. zakaatul fitr min Ramadaan waa sako soomka Ramadaan xidhiir la leh, wa tuhra lisaa'im wa tu'ma lilmasaakiin. qofkii soomanaa wixii khalad iyo gaabis ka dhacay loogu dhaafayo, masaakiintana quudin u ah. waqtiga u dambeeya la bixinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada ciidda inay ka horeysa ayuu sheegay. faman addaaha qabla asalaa fahiya zakaatu maqbuula, waman addaaha bacda asalaa fahiya sadaqa, yani min asadaqaat. waamara an tuaddaa biha qabla khuruuji innaasi ila lmusalla. nebigu wuxuu amray intaan salaada ciidda loo bixin in la bixiyo. qofku isagaa bixin karaa, cidna wuu wakiilan karaa. haddii ay dhacdo inay waktigaa ku dhaafto, cilmiga qaarkood waxay qabaan maalinka ciidda oo dhami inuu wakti u yihi, sida qowl shaafici raximah llahu tacaala u yihi. haddii ay xataa waktigaa ku dhaafto waa deyn lagu leeyahy, waa xaqu lmasaakiin, waa inuu iska bixiyo. marka kolle axkaamteedu way ballaaran tahay. ciddii su-aal gaara ka qabta insha allah way ina weydiin doontaa, lakin guud ahaan hadi axkaam zakaat alfitr. baarak allah fiik. الله عليكم إن شاء الله. السؤال الثاني يسأل كيف ندفع الزكاة على المال الذي يوجد في البنوك اليوم؟ زكاة ايش؟ كيف ندفع الزكاة على المال الذي في داخل البنوك وقد ترتفع وتخفض أحيانا؟ maalka sida lacagta oo kale, su-aashu malaa lacagta ku saabsantay. maalka sikadu ku waajibto ay lacagtu ka mid tahay, hadday dahabtay ama fidatay iyo lacagaan wax kale ka samaysa, meeshii dahabka iyo fidada ayay galeen. marka waxay saka ku waajibaysaa markuu nisaab gaadho, qadar uu ku saka gooyaa nisaab leedaha. lacagta markaa nisaabkeedu waa nisaabu dahab baa loo celinayaa iyo nisaab ulfida, labadu way kala duwan yihiin. marba ta masaakiinta u roon ayaa lagu qiimeynaya.
dahabku wuxuu ku saka gooyaa 85 gram oo nooca 24 24 waa dahab khaalis weeye macnaheedu 22 iyo 21 dahab khaalis maaha inta 24 ka dhiman oo wax kale ba ku jirta soo xisaab gaar u baahan 85 gram oo dahabka nooca 24 ka lacagta gooysa maanta hadaad suuqa isla kaga soo iibso ku gooynaysa aad ku iibsan karto iyo wixii ka sii badan bay sakay ku waajibta marka sanad uu dhamaado maalintii aad milkiiday laga bilaabo markuu sanad u dhamaado inta laga bixinayana waa rubcul ushr rubcul ushrigu waa 10 meelood marka loo qaybiyo meel ruuce si kale hadii loo dhigo waa 2.5% يعني لبا iyo badh boqolkiiba si kale ka sii fudud hadii loo dhigo lacagtada haysato nisaabki gaadhay una 40 u qayb 40 qisma ala 40 inta soo baxda ayaa inta waajibka kugu ah marka lacagta de bangiga taalo qofku waa inuu la socdo maalinta uu sakada bixinayo buu eegaya de intay marayso intaas uu kaga saka bixinaya wallahu a'lam. السلام عليكم. السؤال الثاني شيخنا هل ندفع الزكاة على المال المستثمر؟ المستثمر الوصل هل يجب عليه الزكاة؟ يعني واحد كل حرنتي محا قناعسي بقى محا استثمار كوا نوعنا استثمار يختلف صالحان العقبة جلسة مكا هودال كانت كوكريستي واستثمار صما مال قش سياد أوسي كريسو هودالكي وح لعقتي هودالك ku kireysto qofkii hudaalka lahaaba qaatay hudaalka manfaacadiisa adiga ku taalo soo manfaacada hotelka sika kuma waajibayso laakiin lacagta kaaga soo baxda de markay nisaab noqotay sanad u dhamaadad iska ka bixin gaarada isticmaar ku sameysay beer isticmaarka noocyadiisa ku xiranta muxuu maal gashaday qofku muxuu isticmaaray ganacsi oo kala haday tahay ganacsiga sika ku waajibayso marka sanadku dhamaado ayaa la qiimeynaya alaabtii qiimaha maalinka ay maraysa lagu qiimeynayaa wixii cash lahaayeen waa lagu darayaa intaas haday nisaab gaadho qadarkii ay lacag ku saka goynayso horaa inuu sheegay markaas ka laga bixinayo marka isticmaalka noociisa ku xiranta. السلام عليكم. السؤال الرابع والخامس يقول السائل شيخنا كذب كثر الكذب هذه الايام حتى وصل الى بعضهم يدعون قبيله غيره فما حكم ذلك؟ بينت هو من كبائر الذنوب والذنبيه ده وين واحد كميده بين السيد waxa la qofku al-ikhbar bi khilaf al-haqiqa arintu siday ahayd si aan ahayn inuu sheego qawlan uu sheego ama ficlan uu sheego هذا هو الكذب وانا ملعون قفك بين الله نبينا عليه الصلاه والسلام في حديث البخاري كوري صحيح عيسى إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بينت اسكيل عليه بوري النبي عليه الصلاة والسلام وهي بينت قفك حمانك لو جيسة حمان وسودة بو الترمان ويسوي هذا فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم هل بينه عاد شيء كتب الصابون وانكرتين الخمر عبته إلهي كو عقاب أمين الزينيست أمين الربا عنده من عقوبة الله على السيئة السيئة بعدها عقابك إلهي قفك الدنبي قالوا عقابه حكم إذا إن دنبي كلو سيق قالوا لهذا قفك مسلم كاميركو الدنبي كدعوا إنه هرو توبت كانوا سيانو حمانته هرو قصي سعون إلهي أنه عقابي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنبي يقول قفك النار بوجيه مركب بنتي نار بالوجيه qofku haduu beenta deyn waayo caadiyo dhaqan uu ka dhigto ilaahay wuxuu ku daraa liiska fi qaa'imati al-kaadibin liiska beenaalayaasha yaana halkan aad joogtaa dadka waad la wanaagsan tahay waa anta maktuub cinda allahi kadaab subxaanallah ilaahay agtiisana beenaalaad ka qoranta dadka bani aadamka haddii ay beenaale ku yaqaanaan soo ku dhibi mayso haddii ilaahay agtiisa aad beenaale ka qorantay ka hor وأنا من صفات المنافقين لأنها دليل على ضعف
إيمان صاحبها كان بينت الشيء إنه بين شيء محاكم إيمانك ضعيف إيمانك بينت كعلي لها هو صدعي أما مقام بعض هذا النبي عليه الصلاة والسلام صفات المنافقين الأربع نفاق عملي أو قدر ما أنت وحياة بينت آتك وسهلة دتك كل ذا وحكم إذا سوشيال ميديا مركو من العقل يقول هادين النقضينا بينتي آد بوسي سهل ودد با أرساقدي بين أي كقش سبحان الله وبين رزق كل هادين كأغفك مسلم كاي وأنه بينت يدن بيدك كلا عرب كالغوغلا لما أنت تبغى نسكيل عليه وحي كدعان وإله وقطوبت كان وأنا دقن حن وقفك حتى اسكدا في عقاب كآخرية الدنيا اللي حيث يكون قيمة دعية يعني يكون بدون قيمة بين لها نعوذ بالله من الكذب بارك الله. السلام عليكم شيخنا. السؤال السادس لو تفضلتم شيخنا في ذكر بعض الأحكام المرأة اللي حصل لها حيض هي مرة في أرادت أن تعتمد ولم تعتمد بعض هل هذا من مسجد عائشة أو يكفي إحرام هذه الميقات؟ نعم. gabadha muslimadda cumro doonaysay haddii ay caadadii u timaado inta aanay weli ixraaman way ixraaman kartaa ixraamku mamnuuc kama iyadoo xaydkeeda leba ixraamanaysa waxaana u daliila asmaa bintu cumays radia allahu canha imraatu abi bakr dhowr saxaabi baa u kala dambeeyey laakiin markaa xaaska abubakar bay ahayd dilxulayfay ku umushay cabdiraxmaan ibn abi bakr marka iyadoo nifaaskeedii labuu nebigu amray inay meedhato ay ixraamato ka xayd iyo nifaastoona ixraamka gabadha uma diiday haddii iyadoo ixraamatay kadib caadadu ay u timaadana ixraamkeedii buri maayo ma jabayo oo caaisha radia allahu canha iyadoo soo ixraamato dilxulayfe ka soo ixraamatay oo weliba cumray soo ixraamatay cumro qura kaanad mutamatica ayaa xaydku u yimi ixraamkeedii muu burin maxay markaa samaynaysaa kulu maa yafcaluhu lmuctamir haddii cumro ay tahay haddii xaaje ay tahayna xajiyeysana kulu maa yafcaluhu lxaaj nabigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi caaisha ifcalii maa yafcalu lxaaj gayra an laa tatuufi bilbeyt allaala wuxuu sameynaya qofka xajiyaya samee cumradiina waa la mid lakin kacbadaa ku dawaafin dawaafkuma mamnuucka sacyigiina ma suurto gelaya waayo sacyiga waxaa shardi ah inuu dawaaf ka horeeyo marka maxay samaynaysaa marka maka la soo galo way iska fadhiyeysaa markay daahir garowdo ayay cumradeedii tanciim iyo meel kale toona tegi mayso ixraamkeedii bay ixraamantay weli way iska ilaalinaysaa qofka ixraamin wuxuu iska ilaalinayay markay daahir garowday camalkii qabanaysa dawaafkii iyo sacyigii xaj haddii ay tahay oo waktigii xajka loo baxayay uu soo gaadho iyadoo weli aan daahir garoobin xajkii bay ixraamanaysaa cumrana hadda hore u ixraamnayd soo ma fatakunu qaarina waxay noqonaysaa mid xaj iyo cumro wada socda ixraaman waana sidii caaisha radia allahu canha ay noqoto iyadoo weli aan cumradii gudan ayuu xajka u soo galay fa axramat bilxaj xajkiina way ixraamatay deetana waxay noqotay qaarina طواف الوداع وكله حجك أيالة طواف الوداع صحيح عمره طواف الوداع مله والنبي عليه الصلاة والسلام قوله فعل تونا رنتا كما عضين فعلا لما الشيقين إنه طواف الوداع سميه بعد العمرة قولا إنه الشيقين قف كيس سميانا ديب ماله خروج من الخلاف سواء خلاف كيس كبحي مركا حجك وكله يدو ضواف كي حجك ضوافتي haddii waxa weeyaan caadada ay u timaado dawaaf alwadaac way iskaga tegi kartaa oo loo ruqseeyey iyadoo dawaaftay weli aan sacyin hadduu u yimaado sacyiga tahaaradu shardi uma aha inuu dawaaf ka horeeyo unbaa shardi u ah sacyigeeda waa samaynaysaa way gudanaysaa kolley axkaamta masalada la xidhiidha way badan tahay inahaasaan kusoo koobi lahaa wallahu aclam السؤال الأخير من هذه المكتوبة ما صحة الحديث أول رمضان رحمة ووسطه مغفرة وآخره
مو أنصحين حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام كمو سنان حديث مركز صحيحة هنا تدل على خلافه سو شيء يسي خلاف صنبيت سنس النبي عليه الصلاة والسلام حوري ولله فيه عتقاء وذلك في كل ليلة في حديث كان ماله آخره عتق طبعا كدمو ما نارت لسك حرية حديث كالصحيح النبي يقول حوري هبين كستي إلى عدة بنارتك حرية ما طبعا كدم بقرة كذلك مغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه وقام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هدو أنصح لنا وحن نقول لها بمعنى ويوكل بدنيهن مو نقدين طبعا كهراء ومحي أوله رحمة وطبعا كدحية طبعا كدام الرحمة دي ما تمو نقدين ساسو معنيس نقول لها هدو أنصح لها لكن ما هو أنصحين بحديثكم والله أعلم. عليك السلام. هاوين ويشاروا إحنا الصلاة الليل كو حد مله ترقوا عن مله وهذا بإجماع العلماء ابن تيمية وكذلك القاضي عياض هذين صلاة الليل كو حد مله ترقوا عن مله يعني أول ضعفين كريم تريدوا يروى الركعة تريدوا بدنا حد مله والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى صلاة الليل كوا لبا ركعة إلا قول مو ودي لبا ركعة إلا وصورنا يملا يطلع الفجر واجب ملا وبريه مركز ركعة تكذبوا النبي وتر وقد دكتا تريدوا صوت كني عائشة واحد رضي الله عنها ما كان النبي يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره كويته النبي كم زيادين شيرين كوبي طبعا كاس والنبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الليل كوجو تلقى وأنتوا قاضي ودي الصلاة ده النبي قلت كان أيه واحد صلاة آدو دير أيها وعائشة تري صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أفربوت كذي هيسبوا الدين دير الكودي وناقود معناه آدو ديري رجع وفق هدو سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ديرين أيه قراءة ركوع ده سجود ده وده سورة البقرة يا العمران هي سورة النساء صدح له ركعات تاجنانيو كوبي تونت كذا صار أفضل ووافق النبي عددا وصفة النبي يجيبوا التراد هي الصفة دي وكوافق يسمع لكن هذا تراك ورا نقول والله واحد بين كنت كان يا كوبي تونا وان كدقة تراد يوم بعد النبي وكوافق لكن صفة ده خلافت كاساس صحيحة صلاة الليل كحد ملأ تراويح لنا لا تكاي إمامك وأنا بلا وتري هذا ضروري لي لما وتري هبين لما تكنكروا تراويح ده وتري قوي كتشرها بلا وتري بلا تكنيه هذا هو تهجد كان لا تكن بل وحابة ينري أنت وضع حيسنة تكولي بهداد وكوفي عنك بارك الله فيكم عليك السلام ورحمة الله اعتكاف الحوائج وفرض الكيسة وسوسن اعتكاف macnihiisu waxa weeyaan qofku inuu masaajidka joogo isagoo wuxuu u joogayaa ay tahay inuu cibaadada waqti u helo يعني حبس النفس أو المكث في المسجد للتفرغ للعبادة هذا هو الاعتكاف كوا عبادة والنية بهاي قف إنه اعتكاف نيستو هذا قف كنا درو تردي وكنا دري قاب وكنا دري بالقربة مركب فرال بنغنية هذه كانوا عبادة مستحبة عبادة السنة اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف من بعد أزواجه يقول اعتكافي دمر كي سنة بدو اعتكاف كانوا كان الصحابة يعتكفون مقصود كاعتكاف كانوا حوي وقفكوا إنه الدنيا ده كسوة شيء قلبي كسوة شيء دي الدنيا ده وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتفرغ للعبادة وإلهي يقابله عبادتنا وقت وهله حو سمين يقفكوا انت او مساجدك تشوفوا تشددي اعتكافك وهذه عباديته صلاة ذكري
qur-aan uu akhristo duco ayuu sameynaya muxuu iska ilaalinayaa xumaan oo dhan buu iska ilaalinayaa laqwi buu iska ilaalinayaa intuu ictikaafsay dumar iyo waxaa looma ogola waxyaabaha ictikaafka buriye buu ka mid yahay haddaanu muddo gaara oo cayiman ku nadrin inuu ictikaafo isagaa isu haya intuu doonuu ka dhigan karaa yactakif leyla uma yakruj soo noqonaya habeen kaleo haddana ictikaafaya mushkilad male taas oo maalin buu ictikaafayaa habeenkiina uu iska tegayaa mushkilada male والأفضل waa inuu mutawaasil ahdo ictikaafkiisa toban kaba inu wada ictikaafo kama facala النabiyu عalayhi أفضل الصلاaةi والتسليم baarak الlahu فيk khasab maaha qofku halkuu joogo wey halkaad ku bixin kartaa dumarka su-aasha su-aasha waxa weeye sakaat lfitrida halkan miyaanu ku bixin karnaa mise waxaa shardiga wadankii aanu ka nimi inaan ku bixino halka waad ku bixin kartaa dad halkan joogtaan تفضل آخر سؤال إن شاء الله baarak الlahu فيk su-aasha waxa weeye waxaan doonaya in imaamka salaada la dhamaysto si aan u helo fadliga uu nebigu sheegay alayه الsalatu wasalaam nebigu wuxu uhi man qaama maca alimaam xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla imaamkana loogama jeedo jinsigaa loo jeedaa mid qura looma jeedo hadday shani tukanayaan waa inaad ilaa ka u dambeysa ka u dambeeya aada la dhamayso marka imaamkana in la dhamaystaan rabaa waxaanan rabaa inaan witriga tukan si aan salaad kale usii tukado hadho witriga aan tukado soo saamaa su-aasha imaam waad jamcin kartaa waad iswaafajin kartaa maca witriga imaamka la tuko macnaheedu ma haddaad witriga tukatay inaad salaad dambe tukan karin adoo witriga tukaday haddana salaatuleyl ka dambeysa waad tukan kartaa witri dambuun baanad sameyneyn salaatuleylka in witri lagu khatimo oo aakhir salaatuleyl witri laga dhigaana waa sunni qad habata fi saxiixi muslim أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم صلاته بالليل ركعتين marka maca witrigii imaamka la tuko intaa dabadeed hadday kuu muuqato inaad salaatuleyl tukato صلي ركعتين 4 ركعات 20 ركعة ما تيسر لك لكن بدون وتر ولا وتران في ليلة بuri النبي عليه الصلاة والسلام